bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada bayaan show wuxuu noqon doonaa barnaamij aan uga hadli doono arrimaha bulshada sida waxbarashada qoyska iyo shaqo abuurka. Waxaan maanta nasiib aada u weyn u yeelanay in aan wareysi la yeelano qof shaqsi haween Soomaaliyeed ah loona yaqaano maamadii Soomaaliya. Waxa waaye maamo Maryan Qaasim oo aan ugu imaanay magaalada Ingiriiska ee ka degan tahay Birmingham. Maamo Maryan Qaasim kusoo dhawaaw. mahadsanid. Maamo waxaan rabnaa inaan ku weydiino su-aashaada koowaad. Daawadayaasheena ma u sheegi kartaa meesha kusoo kortay iyo waxbarashadaada iyo magaalada ku dhalatay? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحير هدان إذين دول مرة أنا وحن كل شيء مقالة باردير قبل كجذو مقالة داس ينكسو كوري إلا أنك جاب حي دكسي دح كدب ما إنا لهين وقت جاس دكسي سرع وانكسو تجي مقالة كلام دكسي سرع كدكتي إلهي وحو فرصة إيسيي جامعة أمد الصوماليات إن انكبرت علمي دكتور نماذا أنه وحلقة أنا بحنين وداق وحبرشة بوحدة كهليني دولة يعني كقلين جبيي إن هدان وحير كذا ونقض وحبرشة دي وحقفك كقاتي رولك وين وحبرشة دي وهو يدي فرصة أن هلاي ما يهلين إسكول ويدقتي وقتي إيطاليانيجي إلى وحيك برايمري سكول وحقولك من كل إيطاليانيجي كنتني لحدي إسكول كجبحذي مركا وحي تقاني أفك عربي أفك إيطاليانيجي وحان حسوستا أنا وير سكول مركا بلوني وحي حق وساري جرت أو أي جعلات إنها وحبرت gurigay wax noogu dhigi jirtay iskoolkay nagu dhiirigelin jirtay marka wax kasta ilaahay ka sokow waxa maanta aan gaaray ee heerka aan joogaba waxa waay dadaalkii hooyaday iyo dhiirigelinteedii yaa waxa ugu weyn sabab u ah aan dhihi karaa. Haddaan usoo laabto jaamacadda waxaan ka noqday assistant ama waxa loo yaqaana kaaliye barasar ama assistant lecturer jaamacadda ka noqday isbitaaladkii Soomaaliya aan ka soo shaqeeyay Soomaaliya oo nabad ah ayaan wax badan ka shaqeeyay obstetrics and gynecology aan wax loo yaqaan cudurrada haweenka kadib Yemen aan wax badan ka shaqeeyay kadib waxaan imid Holland oo ayadana aan ka shaqeeyay waxbarasho dheeraad ahna aan ku sameeyay markan Holland imid aan waxbarasho dheeraad ayadana ku sameeyay kadib Ingiriiskaan soo degay Ingiriiskana waxa hadda muddo 12 sano ahaan deganahay waxbarashada lagama gaboobo mana dhamaato Ingiriiska laftirkiisa waxbarasho kale aan ku sii sameeyay oo anoo xiiseynay markaan arkay maadaama ani markii hore takhasuskayga obstetrics and gynecology uu yahay wax intaan fariisto qol hal qof dumar ii soo galaysa aan fiirinayo markii dambe aan arkay baahida jirta oo bulshada waxaan sameeyay Masters of Public Health Warwick University aan ku sameeyay. Maadaama aad tahay maamo Soomaaliyeed qof haween ah aad ilmana aad kusoo dhashay Soomaali qaar kalena aad ku dhashay ku korisay Europe sidee mataqaanaa aad iskugu keentay ama iskugu xalisay inaad hooyana ahaatid oo weliba diinteeda haysato oo sunnadii iyo diinta ay ka muuqato at the same time inaad shaqo oo very high profile job inaad samaysid bal wax noogu taataab. sideedaba bini aadanka waxay u baahan yihiin inay wax kala dooran karaan maxaa ugu muhiimsan maxaa ku xiga haddii waxyaabaha siday kuugu kala muhiimsan yihiin aad u kala dooran karin iyo waqtiyay ku kala xiran yihiin arrimaha qaar waqti go'an bay ku xiran yihiin aniga hooyo hadda alxamdulillah carruurta waa iga wada koreen laakiin marxalad waxaan soo maray oo carruurta markii aan dhalayay
waxaan soo maray markaan korinayay hooyanimada iyo shaqada markaan isu barbar dhigay horta bisaraaxa waxaan kasoo faa'iidaystay 10 sano ugu horreysay oo karyeerkayga ama xirfadayda ay dhismaysay Yurub ma aan joogin waxaan joogay ama Soomaaliya ama Yemen markaasoo aad heli kartid ehel aqribo dad kuu shaqeeya oo ku saacidaaya oo taasoo gabdhaha yaryar ee Yurub hooyo ku noqonaya inay wax ku dhalaan waxna ku baranaya fursadaas ma haystaan marka horta maxaan soo helay fursadaas aniga jaamacadda waxaan ka qalin jabiyey 83 ilaa 94 takhasusaadkii aan sameynayay isbitaaladii aan ka shaqeynayay anaha Yurub waxaan soo galay anigoo wixii aan soo wax badanna soo bartay wax badanna soo shaqeeyay 10 sano isbitaal iyo jaamacada soo dhex taagnaa ayaan Yurub imid wadciga Yurub aad ayuu uga gadisnaa wadciga aan ka imid waan isu miisaamay laano noloshaada waa inaad isu miisaantaa caruurtayda badi waxay ku dhasheen Soomaaliya iyo Yemen hal wiilaan Yurub ku dhalay waxaan isu miisaamay waxaan tan uga sheekeynayaa dhalinyarada waxaa qabsanaya duruufahan oo kale duruufahaaga waa inaad isu miisaantaa markaan dhalay wiilka iyo inaan afkii barto Hollandeeska iskool iyo jaamacad iyo shaqo inaan aado iyo wiilkii yarka ahaa inaan naas nuujiyo waxaa aad muhiim ila noqoto wiilka yarka inuu naaskii u helo oo xaqiisii u helo dad badana waxay maanta isku hayaan markii adiga ay ku arkaan qof hooyo ah diinteedii iyo xijaabkeedii wadato inay mataqaanaa aynan ahayn image everyday ay aragtid marka adigoo haddana qof aad diinta u yaqaano ma noo sheegi kartaa ama ma noo macnayn kartaa diiniyan siday okay u tahay in gabadha ay shaqaysan karto ay wax qabsan karto ay ummadda mataqaanaa ka dhex muuqan karto roolkeeda ay kaliya usan ku ekeen hooyanimada bismillaahi raxmaani raxiim marka aan usoo noqono diinteena islaamka sideedaba waxyaabaha oo dhan waa bannaan yihiin ilaa wixii laga xaaraantinimeeyo aayad cad xadiis cad waxaas waa xaaraam hadday ku dhahaan waa xaaraam gorgortan ma jiro matalan wax kasta oo la cabo caano biyo wax kasta oo la cabi kartaa lama dhihin marka sheeyaa la sheegay khamra waa xaaraam laakiin wax kasta oo la cabo waad cabi kartaa macnaha waxaa badan waxaa xalaashaha badan so taas waxay ku tusaysaa haddii gabadha duruufteeda u saamaxdo inay shaqayn karto gabdhihii waxay noqdeen scholars waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ummuna caaisha yaa ah mithaalka ugu weyn oo lasoo qaadan kara oo wixii laysku qabsadoo dhan qoftii loogu imaan jiray macnaha haddayna baranin waxaan waxay ku riyooto oo kusoo degaya ma ahayn a'imada waaweyn markaad fiirisan yaa macalimiintooda ah intaasoo dumara ku jira oo scholars ahaa marka oo waxbarashadii iyo shaqadii waxaan haynaa daliil cad oo gabdhihii asxaabta rasuulka sayidina Cumar waagiisii suuqa gabaroo madax uga dhigay so waxay la mid tahay wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga oo maanta joogay la mid tahay waagaas micnaha marka positionsay qaban jireen bulshadii ka dhex shaqayn jireen marka xaaraan ma aha laakiin waxaa jira dawaabit macnaha gabadheeda iska dhaqaaq lama dhihin gabadhii ayadoo ilaahay og ilaahay ka baqaysa asturan oo diinteedii iyo xushmadeedii iyo xijaabkeedii iyo asturkeedii inay shaqaysato looma diidin diinta uma diidin hadday duruufteeda u saamaxdo inay waxbarata looma diidin hadda maalan gabar umushay oo ilmo yaro 2 bilood 3 bilood jira haysato diinta ma aha inay xaaraamnaysa laakiin duruuftii inay baybigan hayso maba aadi karto shaqo so duruuftii yaa u saamixi weysa مثلا هذا أنيق أو كله المير ما قبي عرورتي يدي ويود وينادين Soomaaliya hadda markaan ka imid
gurigii aan deganaa gurigaygii markaan furay keligay aan joogo gurigaan fiiriyaa waxaan ka yaabaa waxaan soo xasuustaa guriga mar wada buuxi jiray hadda ruux bini aadan guriga inuu ku nooleen gurigii xiran aan u imid keligay aan joogo inaan furay macnaha caruurteedii way waaweynaatay bal caruuran ayay u ah dhowr ilmoodan ayay u ah marka waxaan kaaga wadaa qofka haday duruuftiisa u saamaxdo diinta uma diidaysa gabadha shaqo waan soo aragnay gabdha shaqeeyey gabadha uma diidaysa waxbarasho keliya waa in duruuftii iyo environmentigay ku shaqaynaysay oo gabadha asturkeeda hadday mathalan meesha ay ka shaqaynaysa mathalan iskool macalimaad hadday gabdho u tahay meesha dhanna dumar kaliya joogaan way ka duwan tahay gabar ka shaqaynaysa isbitaal qof kastaa jooga ninaa jooga qof kastaa jooga so macnaha waxaa looga baahan yahay marka dawaabidkii asturkeeda habka ay u hadlaysa habka ay u asturan tahay laakiin shaqadeedii way gudanaysaa haddaan dhahna gabar ma shaqaynaysa mujtamaca kala barkiis waa dumar so mujtamac haddaad kala barkiisii fariisisay waxa waaye mujtamacaas meel ma gaaraay teeda kale waxbarashada wiil in wax la baro aaday muhiim u tahay lianno wiil haddaan waxbarashada wiilasha kama hadle because hooyadiis yaa biis yaa u arkaa wiilka inuu wax barta inay muhiim tahay ayagaaba ay muhiim u tahayba maadaama aanan ka hadlayn wiilasha waxbarashadooda kama wadi wiilashan wax la barin laakiin wiilasha waaba la baraa waaba muhiim laakiin gabdhaha waxbarashadooda aaday muhiim u tahay gabadha markaad wax bartid xataa haddaynan weligeed shaqaynin gabadhaas aad wax bartay caruurta ay dhalaysa waxay soo saaraysaa generation dhan oo waxay soo saaraysaa ilmahaasay wax baraysaa macnaha shaqadiion laysla gaarin gabadha wax baratay gurigeeday anfacaysaa ummadday anfacaysaa gabadha wax baratay annaga hadda markii aan soomaaliya ka shaqaynaynay barnaamijka in gabdhaha dumarka waaweyn wax qoris iyo aqris la-aanta literacy inay wax aqris bartaan aadan xoogga u saareyna sababta hooyada wax aqris iyo qoris taqaan xataa waxbarasho weyn maaha waxay aqrin kartaa ilmaheeda markuu shubmaayo cusbada loo qasayo oral rehydration saltiga waxay aqrin kartaa sidaa loo qasayo biyaha iyo cusbada laisku daray inta ay leegyihiin daawada ilmaha ay siinaysa aqrin kartaa macnaha waxaan kaaga wadaa gabar markaad wax barto generation dhan iyo ummado ayaad badbaadinaysaa ayadoon tii shaqada la gaarin marka diinta islaamka waxba kama qabto annagaa waxaananu ka baahan yahay guryaha ee lagu soo koriyo caruurta yaa waxaa looga baahan yahay iyo ummadda yaa waxaa looga baahan yahay inay qofkan ay diyaarinayaan inay u diyaariyaan qof muslim ah maxaa kuu muhiimsan ilmahaaga inuu ahaado qof muslim ah number 1 oo muslimnimadiisa gorgortan ayna galaynin so gabadha marka maxaa muslimnimadeeda xijaabkiyaa ka mid ah maxaa qodobka labaad qof soomaali ah inuu yahay qodobka saddexaad mujtamaca inuu wax ku soo kordhiyo intaanan u gudbin ilmaha sidaan u kori lahayn arrintan waxaa rabin inaan ka hadalno dhaqanka maxaa yeelay dhaqan ahaan waxaa lagu leeyahay soomaalida waxay leeyihiin gabdhihaysan shaqaynin guryaha joogaan haddana markaa dhaqankii fiirisa oo soomaaliya wasaaradda qoyska waxbaa kasoo haysa waa soo aragtay ninaa gabar iska guursanaya ilmuhu ka dhalayaa haddana ilmihuu ka dhaqaaqaya ama reer kaluu yeelana ama gobolkul iska tagaya taas diin ma aha oo waxawaaye qofka ilmuhu dhala isaga ka mas-uul ah wax oo mataqaanaa lacag oo child maintenance ma siinayaan marka hooyooyinka way ku qasban yihiin inay baxaan ay shaqaystaan manihin dad carabta camal oo guryihii joogaan oo aabayaashii mataqaanaa gabdhihii loo soo adeegayo oo dad la xafiday oo guryo lagu xaraystay oo la koolkoolina wax loo qabanaya ma lihin at the same time politicada politicska inaan ka qayb galno mala ogola bal maxaa ka dhilad arrintaas bismillah horta su-aasha aad iyo aad ayay u fiican tahay arrintaas aad ayay usoo badatay muddadii soomaaliya aan joogay gabadha soomaaliyeed heerka ay gaartay ilmihii yarka ahaa dhabarkay ku wadaa dhabarkuugu xiraya anigaa indhahayga saare shaahay gadaysaa shaahay shushubaysaa si
reerkaas waxay iyada breadwinnerkii noqotay reerka biilkiisay ku keeni lahayd shaaxaasay gadaysaa jaaday gadanka dumarka Soomaaliyeed ani dumarka jaadka gada waan arkay waa naaga sharaf badan waa marwooyin macnaha ayaga sharaftooda ma cunaan xataa jaadka afkooda ma geliyaan laakiin baahida u geysay haddii wax kale ay heli lahaayeen ay gadi karaan oo loo sheegi lahaa jaadka dhibaatadiisa jaadka intaanoo dhibaatuu leeyahay jaad ha gadina shaqaa lagu siinaa shaqa loo abuuri lahaa leanno saakay waxay u istaagaysaa jaad inay gado lacagtaas waxay rabtaa ilmihii inay ku biisho cunugii yara meeshay ku haysaa meeshay naaska ku siinaysaa meeshaas waxaad arkaysaa waxaa ka baxay dareenkii mas-uuliyadda ee ragga Soomaaliyeed marka aan saas leeyahay aniga ragoo dhan ma dhahay laakiin aabbayaal badan maxaa ilmahan aad u dhashay gabadhan maxaad u guursatay haddii ilmihii iyo ayada intaad fariisiisa waayo diinta waxay waajib ka dhigtay aabbaha inuu ilmihiisa biila diinta waxay waajib ka dhigtay gabadhan markaad guursatay biilkeedii adigaa lagaa rabaa wax biila way waayeen markay wax biila waayeen da guriga dhexdiisa may ku baqtini shaahaasay gadaysaa jaaday gadaysaa wax walbay gadaysaa jidadkay taagan yihiin anaa indhahayga soo saaray biilka iyagaa looga fadhiya guriga waxaa u dheer ilmihiina ayagay sugayaan tarbiyadoodii iyo wax walba marka roolkaasaa meesha ka maqan aniga markaan fiiriyey burburka Soomaaliya ku dhacay wuxuu ka soo bilaabmay qoyska markii raggii mas-uuliyadoodii ay gabeen gurigoodii ilmahoodii ay gabeen ma wadan iyo bulsho iyo dowlad fiir qoyskiyaa la gabay soo haddii wadankan iyo bulshadan iyo dadkan waa qoysas isu tagay nin walba qoyskiisa markuu ka soo baxo wax kala weyn qaban karaa marka waa mas-uuliyad la gabay Soomaalida waxay ku mahmahdaa caano daatay dabadooda la qabtaa waxaan dhihi lahaa arrintaas in xoogga la saaro ragga inay mas-uul noqdaan hooyooyinka waxaan ku dhahaa aniga qayb waxaad ka tihiin dhib ka dhacay wiilka aad korinaysa oo aabbihiisii kaa tegay oo dhabarka kugu xiran oo shahan aad gadaysa asaga aad ka biilaysa inuusan aabbihiisoo kala noqonin oo nin raga oo reerkiisa iyo bulshadiisa iyo wadankiisa wax u qabto inuu noqdo habkaas u barbaare asagoo yar u barbaare habkii uu mas-uul ku noqon lahaa marka waxaad moodaa waxaan wax la iska dhaxlay oo waxay noqotay saarkal xiran oo u baahan in la jabiyo wiilasha inaan u barbaarino inay noqdaan rag haddii wiilkaygii iyo wiilkaagii iyo wiilkeedii aan loo barbaarinin rag inuu noqdo mas-uul inuu noqdo aan loo barbaarinin maalin walba gabar lagu dayacay caruur Soomaaliya wadcigaasaa yaala qurbahana ma dhaanto wadankan aan joogno Ingiriiska iyo Yurub kuma yara gabar intay caruur dhashay caruurtii ayada bushjeer ku riixaysa ayadii shaqo ku tuuranaysa 16 saacadood si ay u keento wixii la cuni lahaa ordaysa guri ijaarkiisa u cararaysa kuma yara wadankan marka mas-uuliyadaas raggii xambaari lahaa waa in habkaas loo barbaariyaa waa mahadsantahay maama Maryan dhib kasta wuu jiraa maalin kasta waan aragnaa ururada bulshada u wada shaqeeyaan masaajidyadii even xitaa da holiday aadid waxaad arkaysaa hooyo ilmo kaligeed loo ordaysa isbitaaladii hooyooyin ciyaalkooda joogaan masaajidyadii meel kasta dhibku wuu jiraa markay hooyooyinka ay hadlaan ay dhibka ay ka hadlaan ay dhahaan war annaka waa nala dayacay oo ilaahay wuuna xafiday mas-uulu noo yeelay which is ninkii ilmihii dhalay ama ha ku qabo ama qofkii ama ha la qabo ama yaan la qabin ay gabdhihii dacwoodaan afkooda furtaan qof dhageysanaya ma leh oo weli sheekada waxaa laga dhigay inay tartan jirto competition uu jiro men versus women inay tahay ma loo arkin arrin ummadii dhan ay ku baaba'day oo guri kasta duu dhibkaas jiro wax yar lay ummadii ka badbaadeen oo aabbayaashii mas-uulka ahaa ay yar yihiin marka questionkan raba inaan ku weydiiyo waxaa waaye maadaama qof diintana aa baratay aad tahay dowladdiina la soo shaqaysay gabdhaha yay u dacwoodaan yayse u ordaan
maxays iyaga qaban karaan si mataqaanaa circlekan oo fishiska oo daba dheeraaday loo joojiyo. bismillaah. arrintan aad ka dhawaajisay horta waa arrin xanuun badan, waana arrin jirta oo aan wada ognahay. gabadha looma baahna inay iyada qayliso. mujtamaca waxgaradka, ragga culamaa udiinka masaajidka ku jira oo hormuudka bulshada ah, aqoon-yahanada, indheergaradka, waxaa looga baahan yahay wadcigan ruuxaanan ogeyn male. hadda gabdhihii qaylinaya yaan xaqooda helaynin. waxay ahayd in loo istaaga gabadhan inay xuquuqdeedii hesho, in loo istaagay ahayd. marka mujtamaceenna wuxuu u baahan yahay wacyigelin badan, sababtoo ah kumaba jed maxay sheegaysaa cunugeeda iyadaa dhasha may haysato, yaa ka dhaadhacsan. laakiin wacyigelin badan ayaa loo baahan yahay, sabar badanna waa loo baahan yahay. wax kasta marka la bilaabayo way adag yihiin, laakiin haddii loo sabro, wacyigelin badan in mujtamacii la siiyo, in la dhaho sidaan sax ma aha, sidaan waa qalad, oo odayaasha dhaqanka oo kale iyo culimada oo kale, sidaan sax ma aha, sida saxda ah waa in la helaa, in la dhaho oo aad looga hadla. bilowga ma sahlana. waxaan kuu soo qaadanaa tusaale nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam. ilaahay wuxuu u soo diray asagoo keligiisa mujtamac oo dhagaxyo caabuda, mujtamaca dhan quraysh oo dhagax caabudaysa. markaasaa la yiri tawxiid ugu yeer iyo hal ilaahay inuu jiro. waad qiyaasi kartaa, waa message aad u adag. hal qof xataa kulama socdo, waa keligaa. dadka oo dhan waxay caabudayaan 100 dhagax. tawxiid ugu yeer. markaad aqriso siirada, waxaan horta ka xumahay siirada, waan arkay cajaladana waa laga sameeyey, masaajidyana waa laga aqriyaa, laakiin waxaa loo aqriyaa sida buug caadi ah oo la fasiray. siirada waxay ahayd duruus in laga qaado. aniga nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa waa waxyaabaha noloshayda dhisay. waxaan u aqriyaa siirada, waxaan ka dhex bixiyaa duruusaan ka dhex bixiyaa oo noloshayda aan ku dabaqo. situationska markaan arko, xaalada markay ila soo kulmaan igu adag, gadaalaan u noqda. waxaan dhahaa xaaladahan, liannu nabiga xaalad uu soo marin male sala allah alay wasalam. xaaladan nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ola dhaqamay. marka maka wuxuu joogay 13 sano. waxaa dhibaato ka soo gaaray keliya messajka ah tawxiid, hal ilaahay inuu jiro, inuu gaarsiiye, ilaa uu ka haajiray maka oo madiine uu haajiray. intii lasoo mariyey dhibaato ahna siiradan ka aqrisan karnaa. laakiin sabar waxaan ka baranaynaa. nabiga ilaahay wuxuu keeni karay malaa'igaa lasoo diri karay, dadka dhan hal maraa muslim laga wada dhigi karay, wax kasta waa isugu dubaridi karay. laakiin inaan baranno sabarka. soo annaga hadda messajkeenna oo ah raggi inay mas-uul noqdaan, waa message rag khayr mas-uul iska soo ahaa hadda beri mas-uul ma noqonayo. sabaray u baahan tahay. waxaa dhici karto generationka hadda jooga inuu ka faa'iidaysana, laakiin weligaa wax markaad samaynaysa lagama fakara adi inaad mirihii aad gurato. dadka naga dambeeyaa guran doona, maybe gabadhaadaa guran doonto mirahaas. laakiin hadda inaan wadno awarenesska, wacyigelinta in la wado, inaan laga daalin, in niyadjab badanaa lagu keenay. aniga 20 sano yaa waxaan waday wacyigelin bulsho. sabar ayay u baahantay. arrinta kale oo decisionka, meesha go-aamada lagu qaato, arrintaas waan ku celceliyaa. ani dumarka Soomaaliyeed shaqo kasta ayagaa qabto. waddanka markuu burburay oo raggii xabadda iyo qoriga isu qaateen, oo wiil iyo abtigiis isdileen, dumarka yaa wax dhisaaya. gabdhaha anjooyaalka bilaabay, gabdhaha bilaabay in caafimaadka iyo waxbarashada ay ka shaqeeyaan, gabdhaha bilaabay wixii la dumiye inay dhisaan. waxaa la yiri ha laga hadlo nabadda, micnaha Soomaali si nabad ku noqon lahayd. gabdhaha isu keenaya dadka, wax walba iyagaa samaynaya, lacagtooday ku bixinaya, laakiin miiska go-aanka lagu qaadanayo marka la imaado ma joogto, lagama qaybgelinayo. go-aan qaadasho
looma ogola inay ka qayb qaadato marka go-aan oo ku saabsan aad muhiim u ah looma ogola inay ka qayb qaadato go-aankii marka lasoo qaata marka aniga dumarka waxaan ku dhahaa soomaaliya zaminkan waxaa soo baxay tviyada fiirso dowladda wax ku dhawaaqaysa waxbaa la samayni waxaad arki dumara lasoo bixinaya dharbulbuluug loo soo gelinaya sacbinaya heesaay waxaan ku dhahaa maxaad u sacbinaysaa go-aankan ma lagaala tashtay markii la qaadanaya waxaan yaan rabnaa saas inaan yeelna dumarka maxaad ra'yigiina muxuu yahay ma lagu yiri marka labaad meeshii lagu qaadanaya go-aanka ma lagu fariisiyey marba haddaad intaas ku jirin ha taageerin ha soo bixin waxba yan cambuur buluug ha lagu soo gelinin ha dhihin mashxadin doorka mashxaradan kasoo horjeeda dumarka doorkooda wuxuu noqday door ku siman taageero iyo mashxarad haddii la rabo inaan mashxarado taageero aan muujiye go-aankaas waa in la igala tashtay meeshii lagu qaadanayana aan joogay macnaha dumar i matala inay joogeen marka taas waa aaday muhiim u tahay gabdho badan iyo arrimahaas ka shaqeeya hadda horta khayr baa soo socdo isla markaas gabdhahaas waxaan ku dhiirigelinayaa wada shaqada fiican aad bilowdeen laakiin mar walbana diinta gacanta ku qabsada wixii diinta ka hor imaanaya ka leexda wax kasta diinta ha idinka horeyso dhaqan ahaan soomaaliya inkastoo maadaama aan dad muslim nahay haddana ma la dhihi karaa diintii iyo dhaqankii waxaa xoog badan dhaqankii oo waxyaabo badan oo customs ah oo aan aragnay sida gudniinka sida guurka xooga sida gabdhaha wax la barin waxyaabo badan adiga oo lagu kala eexanayo raggii dumarka ama gabdhaha wiilasha maxay is leedahay maadaama hadda ay dowlad cusubna ay dhalan doonto cilmigii iyo wixiina ay hadda soo kordhayan gabdhihii wax baran ween sidee improvement loogu sameyn karaa ama maxaa laga qaban karaa gender inequality bismillah arrintaas waxay u baahan tahay dhowr marxaladood sida aad sheegtay arrintaas diinta laguma laha waa wax dhaqan aha oo soo jireen ahaa oo dadkana aad moodaba dhaqankaas inay u haystaan inuu diin yahay markaan soo qaadana gabar iyo wiil ilaahay agtiisa waa un laba qof oo bini aadan ah oo siman marka waajibaadka laga raba gabadha 3 salaadeed tukata ninkana 5 ma la dhehen inta ninka laga raba idana waa laga rabaa aakhara marka la isxisaabinayo waa sidaas la-eg marka maadaama laakiin way kala duwan yihiin rag iyo dumar way kala duwan yihiin oo jirkooda kala duwan siday u eg yihiin kala duwan macnaha waa wax kala duwan laakiin siman marka maadaama ay saas tahay diintii iyo dhaqankiina aada la isugu qasay waxaan soo jeedin lahaa wacyigelin badan in la sameeyo khaasatan dowladda xukuumadda federaalka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaan wada u marinayaa codsi inay sameeyaan barnaamijyo wacyigelin ah barnaamijyadaas oo ku aadan gabdhaha inaan la cunsuriyeynin oo macnaha ayagoo maadaama awqaafta arrimaha diinta oo dhinacii keenaya dad iskoolarisa waxay keeni karaan guurkan qasabka ah diinta meelna kagama sugnaanin ee gabdhaha yaryar oo nimanka qasabka lagu daraayo waxyaabahaasoo dhan macnaha si looga hortago waxay keeni karaan iskoolaris ku takhasusay barnaamijyay samayn karaan ama hawada idaacadaha ka baxo marka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxaan ku boorinayaa barnaamijyada noocaas ah oo barnaamijyada bulshada ah in la ogaado waxan dhaqan lianno nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo diro quraysh waxaan iska dhaafa dhagaxa caabudana ilaahay waa hal jawaabtooda maxay ahayd wax kasta markii laga celiyay anaga aabayaashan iyo awowyaashan waa dhaqankii macnaha anaga wixii aabayaashan awowyaashan ugu imaanay miyaan dhaafeena wax haddana loo sheegay maya so tii unbaan la midnahay inaan wajadnaa aabaanaadii unbaan ku taaganahay mar haddii dhaqankii iyo diintii aan dhaqankii aan ku dheganahay in macnaha dowladda roolka ay ka qaadan karta macnaha wasaaradda awqaafta arrimaha diinta inay u samayso waqti oo arrimahaas looga hadlo
seminaaro noocaas ah in dadka maalan hadda ilaahay hortiisa dadka waa siman yihiin soomaaliya dadkii haybsooc kan waa waxaas macnaha intaas xataa wacyigelin badan laga dhiibo in gabdhaha sida loo korinaayo wacyigelin badan laga dhiibo guurkan oo gabdhaha yar lagu qasbinayo macnaha waxaan aaminsanahay waqtigay qaadanaysaa wax walba horta sabar iyo waqti ay u baahan yihiin lianna wixii hal maalin iskama imaanayaan marka in wacyigelintaasna la badiyo dhinaca kale gabdhaha dardaaran waxaan u dirayaa gabar walba duruufteeda way ka duwan tahay tan kale maalan hadda gabar yar oo hadda ilmo dhaldhasha yar haysato iyo aniga oo ilmahayga dhan jaamacada ka wada baxeen oo cunug yar aan haysanin bal ilmo ayeeyo u ah macnaha duruufteena aaday u kala gedisan tahay soo qof walba duruuftiisa wixii ay u ogolaato inuu qaban karo oo shaqo ah جزاك الله خيرا إن مريم مركز waxaa ahayd wasiirka wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada taasoo ka koobneyd 6 wasaaradood oo howl aad iyo aad u weyn ah sidee mataqaanaa wadigeeda energy first and midda labaad programkii go to school maama horta runtaa waay way cuslayd because 6 wasaarad oo iskor saaran ayay ahayd laakiin ilaahay subxaanahu watacaala aniga maalintayda markaan kuu sheego normally ani maalintayda waxaan soo toosaa intaan salaad subax la gaarin yaan soo toosaa حتى حتى إنجليز كان جوجو ومعلومة حتى أن جوجو وروتين كي أم برتين معناها نولشي ده وحن كوب لابا أنا إلهي تلا صارنا أذكرتي دي قرآن كي كان أقرستا إلهي أنت لا صارتا إله فضوده لأنه إلهي وحوز فضودين ما فضودانا يعني مركلبات إلهي نيد إلهي أنبأك قف كلا أوك أنا هذا واحد كست تيفي كان هرتي سوين كشيء كران ضد كان واحد كست ويجي شيء كران لكن نيد ده إلهي أنبأك معناها ده عادي إجهد نيد ده ربي إجهد برنامج كأتشكت go to school سيدي الماء لا عمل يعني ريو يا وانكواش وحلقواش ماركت وانكواشي وحن استوسي مسورة سوماليا وحلا ده universal primary education target كاسان فيري دراسان سمية لأنه وحا وأنا دراسات سميسا استراتيجيك أتراعيسيد مركو هورا evidence بدن إنا أرورستيد إنا تفيرسيد وحان أركي أن استوسي target achievable إنه يعني أما يول لجاري كر so مركان أركي يول لجاري كر لأنه سومالي دات كده ويريه ilmaha iskool in lagu celiyo la raba way yar yihiin ma badna wadama jira laga raba 40 milyan ama 20 milyan cunug in iskool ku celiyaan wixii aan fiiriyay waan fariistay ilaahan talada saartay mar walbana ilaahan talada saaranay ilaahayna wixii laabta lagu qariyo asaga og qalbigaygana asaga ogaa haddana og waxaan ka fakaray in ilmaha Soomaaliya iskool inay helaan waxbarasho inay helaan sida adduunka qayrkood uu u noolyahay inay u noolaan karaan ilaahay subxaanahu wa tacaala barnaamijkii success uu ka dhigay laano niyaddii ikhlaaskii arrimaha aan la yaabo waxaa ka mid ah qof aan oo la tegay oo aan la hadlay oo igu diida ma arkin macallimiinta lacagtoodan raadinay qolada macallimiinta lacagtoodana siinaysa qof kasta markaan la hadlo qof kasta wuxuu idhahay hadalkaaga wax genuine waxbaan ka dhadhaminaynaa qof kasta aan u tago ama ha noqdo dowlado la weydiinayo kaalmo ama ha noqdaan organizations qof aan kala hadlay oo jawaab oo negative ah isii ma arkeen laano ilaahay qalbigaygu ogaa mararka qaar ani hadda gadaal markaan isu fiiriyo waxaan is dhahaa inaan ma fayoobaydaan anaaba iska shakiya laano waxaan arkay meelaha qaarkood markaan ka hadlayo حتى اسمه أوجي بيكتشر كاس عن مساورتي هرتي دو يالا حنيجي روحان أركي كرا ويلير بورصة نبرك قوة يونيفورم قبا كلاس روم كلا وحان أجي ذا قبر تما هلوسو قلامي يونيفورم وذاته بورصة نبرك بيكتشر كاس رون عملوا إلى النقضي
waxaan dhihi jiray hallucination ma aha laakiin wax kale inaan arka ma rabo kaas keliyaan arki karaa meel kasta aan taga intaasaan ka sheegaya ilaahay maqaadiirtiisa meel kasta aan taga aadaa loo jeclaada barnaamijka wuxuu noqday barnaamijka ugu caansanaa yuu noqday meel walba go to school marka ani maalintii xilka aan wareejinahay ani kadib anaa qoomameeyey laakiin ma celin karin wax aan aad xukumi karinaa jira waxaa ila horkeena ilmihii iskoolaadkii iyo wixii ilinaa iga timid hadal xataa waan hadli waaye shucuur oo aanan cadaadin karin yuu ahaa shucuurkaas kadib markaan guriga ku laabtay waan iscanaantay naftayda waa ilintaada usoo daadad waa ad ilintaada u celin weyse laakiin shucuur aniga aan celin kara ma ahayn marka mar kastana ilmaha soomaaliyeed meel kastay joogaan khayrkaasaan u rajaynayaa waxaan ugu jeclahay inaan arko ilmo soomaali muslim ah xataa manhajka marka la diyaarinayo manhajkaas waa inuu ii soo saaraa ilmo muslim ah soomaali ah bulshada wax u qaban kara marka kaas wuxuu ahaa barnaamijkaas saasuu ahaa ilaahay waa ii fududay annagoo intaas wasaarad isku haynay ilaahay wuxuu noo suurtageliyey wasaaradda caafimaadka shaqadii ugu weyneed oo ah adeega asaasiga waxaa la dhahaa essential package of health services waxaan aaminsanahay wax kasta oo aan qabtay ilaahay aa ii fududeeyey haddii ilaahay uu ii fududayn lahayn ra'yigaba iguma soo dhaceen ra'yiga inuu igu soo dhaco go to school ilaahay sooma keenin waxaan ilaahay soo iima fududaynin marka waxaanoo dhan ilaahay rabitaankiisa ayay ku dhaceen waa mahadsantahay so the lesson here is ilaahay talada saaro horumarkaaga iyo danaada waa gaaraysaa maama Marian final questionkay waxaa waaye gabadha Soomaaliyeed ama hooyaha ahaato ama single ahaato oo rabto ummadeeda inay wax u qabato nafteeda wax u qabsato oo politician ama politics ka dhexda gasho maxaa advice lahayd adoo mahadsan bismillah marka waxaan rabaa horta dhagaystayaasha iyo gabadha iyo ruux kasto hal aayad oo dardaaran ah oo noloshayda wax badan ka soo qabata noloshayda dhan aan ku soo gaaray waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib qofka markuu ilaahay isku xiro ilaahay ka baqo ilaahay ka dhowrsado يعني إلها ما الوضوء فرفراي ومن يتوكل على الله فهو حسبه مركا قف كستهدو إلهي تلاقى صار إلهي اسكحر هرتو نولوشيسا سهلين قنيسا قبل مركا وصونق قبل الصوماليات دردارن كي يكوبات لبات سدحات مركا هوري إلهي اسكحر مركا هوري الدون إلهي النقو إلهي وحكات البدي الدون إن النقوتين وحكا لو نوي فرمايا مركا wax kasta aad samaynaysana u miisaan ilaahay raalli ma ka yahay mise kama aha waxa aad samaynaysana ikhlaasa ku jira waxaad ilaahay dartiisa u samaynaysa inay tahay ma sahlana siyaasadda in la galo aniga siyaasi ma yaani runta markaan kuu sheego laakiin ilaahay wuu qadaray inaan 2 mar aan wasiir noqday marka laakiin dadaa jira xiiseeyo oo barta oo siyaasadda barta oo aan rabna future-ka inaan aragno dumar siyaasiyiin ah laakiin ilaahay ku xiran gabar waxaan rabnaa marka hore muslimad then siyaasiyad inay ahaato aniga siyaasiyad ma ihi siyaasana ma baranin labadaas marna ilaahay amarkiisay ku noqotay marka intaasaan kula dardaarmi lahaa gabdhaha maama Marian Qaasim jazaaka Allah khayr inta waqtigaada qiimaha iyo qaayaha badan aad noogu soo imaatay programkan waxaan mahad ilaahay ka soo leh walaalkeen Ahmed iyo walaashin Hiba oo gurigooda iyo interviewgan noo soo fududeeyay waxaa idin leeyahay daawadeer inta isku kulmeen barnaamijka la mid ah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh